oo la rabo in lagu shaqeeyo lagu wada shaqeeyo dadka ku nool gobolka Nugaal ku socota wasaaradda amniga iyo DDR-ta Puntland og wasaaradda arrimaha gudaha iyo horumarinta reer miyiga og madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ujeedada shirka guddiga amniga gobolka Nugaal sida ay isugu yimaadeen dhammaan guddiga nabadgelyada gobolka Nugaal una shir gudoomiyaha gudoomiyaha gobolka Nugaal ahna gudoomiyaha gobolka Nugaal maanta ay taariikhdu tahay 14 bishii tobnaad falanqayn dheer kadib shirka waxaa ka soo baxay qodobadan hoos ku qoran ajandaha shirka waa amniga iyo dhulka dhalinyarada mobilka furata iyo kuwa maandooriyaasha gada iyo kuwa isticmaala in sharciga la mariyo qodobka koowaad number 1 in dhalinyarada mobilka furata ay ku cadaato iyo kuwa caadeystayaasha ah number 2 weeye number 3 in hubka laga mamnuucay magaalada dhexdeeda marka laga reebo ciidanka amniga sugaya number 4 in baabuurta aan taarikada lahayn iyo kuwa bacaha madow aan loo ogolayn inay magaalada dhex maraan numberka 4 numberka 5 waxaa mamnuuca qof dharcad ah oo hub ku sita magaalada dhexdeeda numberka 6 baabuurta dagaalka lama ogola inay magaalada dhexdeeda maraan marka laga reebo gaari hawlgal ku jira intaas waa arrimaha amniga arrimaha dhulka danta guud ah in la baneeyo waa number 1 in aan dhulka si sharci darro ah loogu habsan karin in dacwadaha dhulka bannaan loo daayo dowladda hoose ee degmada Garowe maxkamaduhuna aanay geli karin dhulka bannaan waxaa la mamnuucay in dhulka lagu calaamadiyo cagaftii lagu qabto iyadoo dhul jeexaysa waxaa la saarayaa ganax culus xubnahaas ka soo qayb galay shirka amniga gobolka Nugaal gudoomiyaha gobolka Nugaal cabdisalaan xasan xirsi gudoomiye ku-xigeenka cali salaad diiri koowaad gudoomiye ku-xigeenka labaad bariir ciise ibcad duqa degmada axmed bare taliyaha muxyidiin axmed taliya ku-xigeenka cabdixamiid billahi tawfiiq